breakfast or lunch qado iyo quraac waa lagu wareeray qado ama quraac weeye it was waxay ahayd Sunday axad bay ahayd I never get up anigu marnaba ma tooso early on Sundays axadaha aroortii marnaba ma tooso I sometimes anigu mararka qaar stay in bed sariirta ayaan iska yuururaa ama aan iska jiifaa until ilaa iyo lunch time ilaa iyo waqtiga qadada last Sunday axadii la soo dhaafay I got up anigu waxaan toosay very late goor dambe oo aada ayaan toosay I looked out waxaan anigu aan dhugtay ama aan eegay ama aan fiirshay dabadda of the window ee daaqada banaankeeda ama dariishada shubaakadaan fiirshay it was waxay ahayd dark madow ama mugdi bay ahayd dark outside banaanka daaqada mugdi buu ahaa what a day war maanta maxay maalin la yaab la tahay I thought waxaan ku fekeray it is raining again in roob uu mar kale da'aayo ayaan ku fekeray just then markaa kadibna the telefoonkii ayaa rang soo dhacay ama yeedhay just then markaa kadibna the telephone rang teleefonkii baa yeedhay ama soo dhacay it was waxay ahayd my aunt Lucy eedaday Lucy bay ahayd waxa telefoonka soo diray I have just arrived by train hadda ayaan tareen ku imaaday she said ay tiri I am coming to see you waxaana u imaanayaa inaan adiga ku arko but laakiinse wiilkii baa odhanaya I am still having breakfast anigu laakiin weli waan quracanayaa I said aan ku iri buu yidhi what are you doing maxaad samaynaysaa she asked ay weydiisay qadka teleefonka I'm having breakfast anigu waa aan quracanayaa I repeated ayaan ku celiyey dear me qaaligeegiyo she said ay tiri qaaligeegiyo do you always get up so late adigu mar walba ma sidaasaad goor dambe u toostaa it's 1 o'clock waa kowdii